Immisa lacag ah ayay Sunny Deol iyo Sunil Shetty ku qaateen samayntii filimkii Qaxar? Raj Kumar Raw Aamir Khan waa qof la isku halayn karo oo ammaan leh xaqiiq ahaan waa jeclahay Aamir Khan. Wax ka ogow 10kii hidde ugu weynaa oo ay Bollywood ka sameeyeen sanadkii 2000. Director Raj Kumar Kohli ayaa la saxiixday Sunny Deol iyo Sunil Shetty si ay door muhiim ah ugu yeeshaan filimkii Qaxar ee dib loogu soo celinayo wiilkiisii Armaan oo markaas awoodiisa lumisay. Sunny Deol wuxuu qaatay lacag dhan 50 lag xilligaas asigoo duubistii filimkii Qaxar ku lahaa 15 maalmood, waana lacag adag oo aad u badneyd sanadkii 1995 maadaama atoorayaasha badankooda filim dhammaystiran 50 lag ilaa 40 lag ku samayn jireen. Star Power-ka Sunny Deol waxay ahayd xilligaas mid aan loo dhawaan karin, waayo filimka uu ka soo muuqdo wuxuu ku furmi jiray nidaamka bumper open-ka loo yaqaan oo ah in filimka 80 ilaa 100% ku furmo. Sunil Shetty isagana wuxuu ku qaatay 30 lag xilligaas duubistii filimkii Qaxar, wuxuuna ku lahaa jadwal ahaan muddo 30 maalmood ah duubistii filimkaas. Sunil Shetty waqti fiican ayuu xilligaas ku jiray, wuxuuna ku qaatay samaynta filimkan Qaxar lacag dhan marka loo fiiriyo jadwal 30 maalmood ah inuu 30 lag ku qaatay. Xilligaasna atoorayaasha isaga la mid ahaa sida Ajay iyo Akshay Kumar filim dhammaystiran ayay lacagtaas ku samayn jireen. Qaxar wuxuu noqday filim guulaystay markii tiyaatarada la saaray. Director Raj Kumar Kohli lacagtiisa kama uusan lumin maadaama awoodii Sunil iyo Sunny Deol filimkan ku badbaaday. Asigoo average noqday Armaan Kohli inkastoo uu atoore ka ahaa, haddana filimkan waxaa gadeen labadii caawiyaha ka ahaayeen. Qaxar oo la daawaday waxaa lagu qarash gareeyay 4 karoor, wuxuuna keenay 6 karoor cimri ahaantiisa, waxaana saami ahaan laga helay 3.13 karoor, taasi oo ka dhigtay in 78% dib u soo celiyay lacagtiisii lagu maalgeliyay. Raj Kumar Raw Aamir Khan waa qof la isku halayn karo oo ammaan leh xaqiiq ahaan waa jeclahay Aamir Khan. Raj Kumar Raw waa mid ka mid ah atoorayaasha Bollywood-ka kuwooda ugu jiliinka wanaagsan. Xilli uu xiddigan wareysi bixinayay ayuu wax ka sheegay superstar-ka Aamir Khan. Raj Kumar Raw wuxuu caddeeyay inuu aad u jeclaan lahaa la shaqaynta Aamir Khan, shakhsi ahaan uu yahay qof uu ku daydo. Raw oo hadlaya wuxuu yiri, Mudane Aamir Khan, xaqiiq ahaan waxaan la soo wadaagay waqti wacan, waana shakhsi la isku halayn karo ammaan ahaan. Waxaan xasuustaa inuu Diwaaliga dhammaanteena nagu casuumay gurigiisa xafladii Diwaaliga. Waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo Mudane Aamir, waayo qof in badan lagu daydo dhan walba. Waxaan jeclahay filim walba inaan asiga la sameeyo. Wax ka ogow 10kii hidde ugu weynaa oo ay sameeyeen Bollywood-ka sanadkii 2000. Haddaba anagoo kasoo xiganayna xogtan box office-ka India oo soo daawacday. Filimka koowaad waa Kahona Pyare Hai oo noqday blockbuster, wuxuuna keenay 44 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 284 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 30 milyan iyo 663 kun oo qofood. Filimka labaad waa Mohabbateen oo noqday blockbuster. Filimkan wuxuu keenay 41 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 247 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 26 milyan iyo 723 kun oo qof. Filimka saddexaad waa Kaya Hai Hai oo noqday super hit. Filimkan wuxuu keenay 12 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 71 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 7 milyan iyo 671 kun oo qof. Filimka afraad waa Dulhan Hamle oo keenay 18 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 123 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 13 milyan iyo 317 kun oo qof. Filimka shanaad waa Badal oo noqday hit. Filimkan wuxuu keenay 15 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 107 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 11 milyan iyo 654 kun oo qof. Filimka lixaad waa Hamara Dil Abke Baas Hai oo noqday hit oo keenay 14 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 90 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 9 milyan 825 kun oo qof. Filimka toddobaad waa Visa oo noqday semi hit. Filimkan wuxuu keenay 14 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 92 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 9 milyan 669 kun oo qof. Filimka sideedaad waa Mission Kashmir oo noqday average oo keenay 22 karoor. Lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 138 karoor. Sidoo kale filimkan waxaa tigidh u goostay 14 milyan 982 kun oo qof.
filimka sagaalaad waa Josh oo noqday average oo keen 17 karoor lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 112 karoor sidoo kale filimkan waxaa tigid u goostay 12,134,000 oo qof filimka tobanaad waa Refugee oo noqday average filimkan wuxuu keenay 17 karoor lacagtan haddii maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 110 karoor sidoo kale filimkan waxaa tigid u goostay 11,960,000 oo qof